السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu dhexda uga jirnay cashiraadkaynu ku baranaynay software QuickBooks-ka. waxaynu soo gaarnay inagoo soo sameynay vendorskii iyo wixii transaction ahaa na dhex dhacay soo dhameynay, customer soo dhameynay wixii na dhex dhacay ee transaction ahaa. maanta waxaynu joognaa employees, sida shaqaalahaaga aad u diiwaan gelin lahayd barnaamijka, sida aad shaqaalahaagii ugu diiwaan gelin lahayd baynu maanta ka hadlaynaa. marka aynu horta soo diiwaan gelino shaqaalaha noo shaqeeya employees ku dhufo, halkaa waad kaga dhufan kartaa. halkaa sarayntaa tagtid employee center waad odhan karaysaa, labadaba waad kaga dhufsan karaysaa, isku meel ku geenayaan. marka bal aynu ku soo darsano qofka inoogu horeeya shaqaalaheena, qofka u horeeya waxaad kaga daraysaa halka new ay ku qoran tahay. halka new ay ku qoran tahay waad ku dhufanaysaa. marka ku dhufatay halkan ku keenayaa. markuu halkan ku keeno qofka magaciisii yaad ku bilaabaysaa. مثلا waxaad leedahay qofkan magaciisa waxaa la yiraahdaa qof dumar aynu ka dhigno. markaan magaciisa sida u qorano, halkan isaga magaca aad ku soo print gareynaysa jeega isaga halkaas ku soo buuxinaya. haddaad doonaysid inaad ka bedesho ka bedeli karaysaa. hadduu qofka social security number hadduu leeyahay xakamaad ku qoraysaa. inagu ma lihin waxyaalahan. gender qof ahaan kun waxa nin ma naag baa waa naag weyn. qofka waqtiga uu dhashay waa dooranaysaa. يعني انت نوع ببحنيسا ماشي ستيسكيس qofkani ma la furay ma wulinin ma qabtaa maartay ma wixii halkan baad ma single baba halkan inuu yahay qof citizen Americana mise ma aha ma aha baa leedahay. barnaamijkan sidaan idin sheegay waa software Mareykan. marka mar walba wixii Mareykan ka jiro nagu maartay weydiinaya sidaan cashuuraadkii soo aragno oo kale. cashuuraadkiisu dhan waxay ku dabaqan yihiin cashuuraadka Mareykanka. xaggan waa dadka Mareykanka ku nool noo sheegaya taa hoos iska dooranaysaa. haddaad maartay qofkani ma qof caafimaad qaba mise qof wax ka dhiman yihiin, waa qof caafimaad qabaan leenahay waxba kama dhino. hadduu wax ka dhimayno qofku qof mucaaq ay yahay sababta maartay waxaan description baad ka bixinaysaa, waad sifeynaysaa wax iska aduu yani tan waa iska soo dhaafaysaa. inaga inama qusayso, tanna inama qusayso. waxay ku leeyihiin halkan qofku militariga ma ku jiraa, muu shaqeeyaa, weli militariga ma ku jiraa mise ku fadhiistay, waxyaalaha saas ku diinayaan. xagga nooca cashuuraadka waxaa iska soo dhaaf. marka halkan address and contact ay ku qoran tahay baad imanaysaa. qofka addresskiisa oo dhammaystiran baad inta ku buuxinaysaa. addresskiisa koowaad yani meesha uu sii galo, magaaladiisa. halkan uu stateska ku qoro, waxaan waa stateska Mareykanka, waxaan waa Mareykanka stateskiisa waan yani inaga ma aha. markaas aad la soconaysaa. main phone-ka qofka telefoonkiisii, telefoonka shaqada, moobil ahaan uu haysto, fax-ka, inta oo dhan waxaan yani waa qofka addresskiisa iyo wixii meelihii lagala xiriiri lahaa. marka intaas aad buuxinaysaa. hadduu jiro primary contact, hadduu jiro ama secondary contact, waa dadka haddii isagii lagala xiriiri lahaa lambaroodii waxaan ku qoraysaa. isaga iyo dadkaas waxay isu yihiin, ma isqabaan, ma dad wala noolba, wax si wixii oo dhan baad maartay halka ku buuxinaysaa. ma hooyo uu yahay, ma aab uu yahay, ma walaalkii waxaas. additional information kan waa macluumaad idaafiya. qofka haddaad haysid employee-ga qofka numberkiisa, haddaad haysaa ko numberkiisa iyo ID-giisa ama uu siiyey, halkaa waad ku qoraysaa. halkan haddaad arkaysiin ma xasuusataan mar aynu naanay soo qoran jirnay. mar walba waa inaga inay haddaan employees joogno, haddaan customer joogno, haddaan vendors joogno, intaba meesha way la soconaysaa. sababtoo tahay markii baan soo dooran. haddaan doono mid kale inaan ku darsano halkan ma kaga darsan kareyna. haddaan doono inaan tan iska qaadno halkaa baan ka qaadayna. imika haddaan ka qaadno meeshaas way naga baxaysaa. taana saa way la soconaysaa. liiskan dheer waxaad doontaad ku darsanaysaa wixii yani meeshan aan ku jirin, laakiin aad doonayso qofkan in lagugu daro, halkaa baad kaga daraysaa. okay, payroll information-ka markaad sidaa ugu dhufatid waxaa ku soo baxaya halkan oo aha yani qofkan mushaharkiisa macluumaadkii ku saabsanaa, sidii mushaharka u qaato, haddii wax idaafaad ay jiraan sidii idaafaadka loo siiyo, haddii wax laga jaray jiraan sidii wixii laga jarayay aad halkan u gelin lahayd. waxaasoo dhan ba xaggan kuugu jira. marka waa halkan aynu ku qoranno monthly aan ku qoranno. xagga monthly aan ku qoranno set up there. okay de marka xagga monthly uu beddelay qofka waxaan ku siiyaa bil ahaan baan ku siiyaa. okay, xaggan wuxuu kugu sheegayaa qofka lacagta uu qaato, wuxuu ku qaato. imika مثلا haddaan halka furo oo kale waa weli waxa ma laba gelinin, laakiin waxaad leedahay waad ku sii dhufanaysaa. marka inuu sanad ahaan baan leenahay. ma regular baa mise waa regular baad ku daynaysanaysaa. magacaadu bixinaysa basic salary baan leenahay, yani waa mushaharka caadiga ah.
okay halka ay galayso waa payroll expenses waa halkii maartay kharashaadka noo taraagaleen lahaa wixii aynu bixino mushaara okay baad leedahay marka okay marka sida ugu fatay xaggan waxaad gelinaysaa lacagtu qaadanaya waxaad leedahay midna qofkan wuxuu qaataa 800 buu qaataa iska dhig waxa ku yaraan 800 markuu masaajka ku soo qoro continue iska dhig waa sida uu soo wadaysaa iminka tan waa xaraynay yani haddii de wax kala jiraan waa tii gelgelinaysaa مثلا waxaa jira qofka waxaynu halkan oo kale waxaad kaga daraysaa hadda allowances u sameeysid wax yani bedelaad oo kale haduu qaato oo yani idaafaada xagga ma kaga daraysaa iminka for example yani waxa مثلا waxaan leenahay addition waxaan siinaa allowances buu qaataa qofkan yani ziyaado lacag ziyaada oo kas oo lacagta ziyaadadu aha waxaan leenahay transport allowances buu qaataa qofkan marka soo doortid bad next baad leedahay halka taraagareynaysa iyadana waa tan ugu dabaad leedahay cashuuradii waxa aan iska reebaynaa halkan imika haddaan tii hore aynan soo dooran kuwan naga saari lahaa oo wax ku saabsan Mareykanka anaga muuqsayo marka taan number hore soo dooranaysaa next baad next marka tii tan oo sanadkan ku deyso okay marka tan ku keeno crossbay ku deyso ma waxaa jirta yani amount muayana oo ama percentage muayana mise way kala duwan yihiin مع سناد مثلا بقيبان سناد بوان وكل الدونا وين كل الدونا ده هو بناك كده مركا أوكي فينش ده مركا فينش مركا تلاهيد ترانسبورت allowances مركا حاجة بكون صوغش مركا عمون كبد قلني سوا حل هاي مثلا بحل هاي بقول كيف عشان سكده يعني بقول كيف عشان تاسوا هدو واحد زيادة هدي deduction تاكور قفك وحمان كجوينا مثلا بحان كجوينا أو كله زكاة بان لنا زكاة لقى قاعدة قفكن deduction ده زكاة ده زكاة بديسو مركا صعو قولada maartay lacagtan maqaadaysa waxaan leenahay مثلا bantal soo nactaarina waxaan leenahay diiwaan zaka okay ده halkan next waad si leedahay halkan inta ku deyso halkan sida ku daa tan sa ku daa next waad si leedahay okay finish da marka halkan imika marka مثلا bagalino boqolkiiba 3 aan iraan boqolkiiba 2 aan iraahno imika halkan minus wiisu bedeliyaa halka hore ziyaada ahayd laakiin halkan minus wiisu bedeliyaa soo sida qofku waxa ka goynin marka kuwan sida baad u xareysanaysaa sida baad imika qof walba tan waxa jirta oo default ah oo qof walba marka sameynaysid haddaad sidan u soo sameeysid ku soo galaysaa laakiin qofna waad u geli karaysaa marka sidaan baad u wadaysaa yani waxa ku wala xareynaysaa هذا هكذا employment information كذا دي متى قفك مال يعني مالتي اللي شقة كياني مالته شقة كتجيو إنك مثلا ما مالته شقة اللي غير يو كلا حطينا وري قفك شقة وشقيو وهالك شقة يضرب برنامج كتجيسا مالته اللي اليوم بحق الشقة يتجني سا يعني قفك شقة ديس هي مالتي اللي سو شقة جاي واحد ببحنيش حقا يعني employment type واحد تايم regular بام سو officer سو واحد سو owner بوقت ما اشتغلها أنت تايب دي يدنا الجني سا ما فول تايم بامس بارت تايم قفكن مو ولا يعني انه فول تايم بارت تايم مو كلا شقينا لكن هدا meelaha joogto oo kala shaqeyn wad kala dooran karaysaa yani full time baan inuu wala shaqeynaa ma leenahay marka xaqana qofkani ma qof laga cafiyo dariibada xaalashaas ma taxiga iyo xaalashaas oo kale haduu hayahay tan baad ku qoraysaa hadii kala number la marka sida uu bixinaysaa qofkan shaqadiisa faahfaahinteeda shaqadii haya waxay tahay supervisor haduu leeyahay yani waxa uu qofku yahay haduu jiro supervisor haduu jiro qofku yahay halka ka gelinaysaa department uu qofka shaqada description ka waxaan oo dhan waa yani adiga ahaan imika macnaheedu ku sameynaysaa laakiin inaga maadaama waxaan uu yahay shirkad iska tijaabo ah oo shirkad tusaale ah inaga macnaheedu ma sameynayso haduu qofkii مثلا uu absan yahay uu maartay meel u baxay markuu baxay markuu laga yaabo inuu soo laabto markuu soo laabto la rabay inuu soo laabto iyo markuu caadi ahaan soo laabtay halka inta bad wala gelgelinaysa wuxuu uga tagay yani wuxuu u baxayna waad gelinaysaa yani reasonkii iyo wuxuu u baxay waxay tahay inta termination qofkii hadii shaqadii laga eriyo oo shaqadii qofkii maartay ka tagaba maalintii u dambeysay shaqada ugu dambeysay maalintii u dambeysay oo lacag qaatay oo waxyaalahaas oo dhan yani waxaan oo dhan aad u maartay marka inaad u baahataa macquula laakiin marka waad gelgelinaysaa aad u baahatid xaqana waa iyadoo detail oo iyadoo la sii faahfaahiyay oo termination kan yani qofkan shaqada waxa looga eriyo nooc uu yahay
reasonka looga eriyo ama uga tagay qofkan dib loo soo shaqaaleysiyo recommend hadday tahay iyo yes or no hadday tahay midkaad baad sii dooranaysaa marka sidaa baad wada gelgelinaysaa qofka maanta marka qofka shaqaalaha sidaa baad macluumaadkiisa u xareynaysaa marka safe halkan siday tahay ku daadha halkii aynu wax ka soo qaadqaadaynay ee taxigii iyo canshuuraadkii wixii uu ku leeyahay arrintaa ma la socotaa inaad sidaas oo samayso marka ma sideen baad doonaysaa marka waxaan leenahay sideeda noogu daa waxba marta ma doonayno qofka u horeeya ee shaqaalaheena sidaa baynoo xareysanay qof walba oo shaqaalahaaga sidaa unbaad usoo xareynaysaa halkan hoos u imanayaan wixii shaqaalahaaga wala dhani markaaba halkan intii haddaad doonaysid inaad qofkan edit ku samayso waad garan karaysaa niyo haddaad doonaysid qofka meesha ka saartid inactive haddaad doonaysid inaad ka dhigtid marka haddaad doonaysid intii marka payroll information markii aynu iminka soo sameynay haddaad doonaysid mid default haddaad doonaysid inaad samaysatid halkan baad ka samaysanaysaa oo marka midka default halka ka samaysatid mid walba uu kuu soo baxaya adoon buuxinin halkii maaragtay markaad imatid adoon buuxinin buu kuu soo baxaya waxaad halkan gelisaa tan inta yar baa ku jirta markaan shaqaalaheena sidaa usoo xareysanay bal halkaa unaynu halkaa shaqaalayn ku dayno halkaas example ha noogu filan adigu markaa sidaa u wala xaray shaqaalahaaga bal aynu markaa iska xidhno markaa shaqaalihii waan soo samaysanay kaba soo qaadinay bishii imika dhammaatay shaqaalihii lacagtii baan siinaynaa shaqaalaha waxaad lacagta ka siinaysaa halkaa yaraa bankiga ku qoran tahay tag right check qor jeegta halkaa ku dhufo bankiga aad lacagta ka bixinayso markaa imika bal dahabshiil horta bal khasnadeena kaashka waxaa noogu jira 55,600 okay 600 qofkan aan siino qofkan 600 baynu siinaaba aynu nidhaahno marka halkaa ku dhufo qofka aad lacagta siinaysaa waa qofkee waa Fawziyaan leenahay waa qoftan noo shaqaysa halkaa markuu not now iska dhawo marka halkaa markaad ku dhufatid qofkii magaciisa soo doorastid halkan haday jirto memo aad yani waxa qofkan waa mushaharkiisii bisha maxayga adoo yani qofka waxaad adigu ku garanaysid markii la joogo reports markii la joogo baad ku qoraysaa halkan expenses baad imanaysaa expenses markaad imato waxaad gelinaysaa lacagtani meesha ay yani meesha aynu soo sameynay oo kharashaad ah aytini waa kharash naga baxay marka meesha noo taageeran lahayd noo sheegi lahaa kharashaadka naga baxay marka waxaan leenahay payroll expenses waa akoonka noogu xilsaaran inuu noo sheego wixii kharash aan bixinay ee mushahara marka 600 baan leenahay 600 qoftaasi marka halka hadda arkaysid amoonka halka iyada iskelsi markaynu xaqan amoonka galnaynteenu siin halka iyada iskelsi marka waxaan leenahay 600 c marka waxaan doonaynaa kaashkeena inuu marka noogu soo hadho 550 xagga kale inteynaan okay odhanin halkan idin tuso wax isbedeli doona marka ka been financial profit and loss markaan tagno waxaan doonaynaa halka kharashaadkan maadaama aynu maanta mushahar bixinayno payroll expenses wax la yiraahdo in halkan noogu soo biirto oo 600 kharash naga baxay 600 halkan ku soo biirto marka bala soco save and close marka xaggan maxaa noogu soo biiray 600 baa noogu soo biiray 600 yaa xaggan noogu soo biirtay markaas wada soconaysa okay qof walba oo mushahar siinaysid sidaa wad u siinaysaa saas marka waa dariiqad taas waa hal dariiqo halka intaad ka tagtay halka ku siin karto waa dariiqad kala jirto oo ka siin karaysid dariiqada kale ka siin karaysid halkan general journal inta la tagaysaa general journal inta marka taariikhda qofka aad mushaharka siinaysid halka aad u fanaysaa waa markii u horeysay in general journal inta isticmaalayno marka wanbu noo galiyay marka sidaa u wadi doonaa halkan baad ku dhufanaysaa akoonka baad soo gelinaysaa marka aynu nidhaahno akoonka uu kharash ka baxaya waa cash horta markii aynu soo bixinay lacagtii markii aynu soo bixinay bal aynu eegno inay iska lacagti ka baxday cashkeeni waka 600 way baxday cash xaggan xataa ku dhufatid xagga maad ka sii arkaysaa cashkii 600 way ka baxday 550 baa jooga okay marka imikana lacag kale aynu ka bixinaynaa cashkan imikana ka bixinaynaa imika waxaan leenahay lacag weyn ma bixinayno $100 ma bixinayno marka cashku waa asset ka markii aynu soo soconay haduu waxaan nuqsaan oo iyada decrease ku yimaado oo hoos u dhac haduu ku yimaado creditkeeni ku gelin jiro haddii ziyaado ku imato oo wixii increase ku dhaco oo cashkeeni ama assetkeeni uu increase ziyaado debitkeenu gelin jiray marka maanta cashkeena maxaa ku dhacay cashkeenu marka maanta hoos buu dhacaya sababtoo ay lacag baynu bixinaynaa marka $100 xagga geli $100 okay hoos soo deg marka
hoos markaas uu soo degtay debit isagu automatic wuxuu kugu gelinayaa halka sababtoo wuxuu ku leeyahay lacagtaas meel ka baxday meel bay gelaysaa meesha halkan ka dooran weyn bis okay meesha gelayso waxaan leenahay payroll expenses kii aynu soo sameynay aynu nidaan wixii mushahar bixino noo taraagare oo halka noo ilaali adigu kii baynu u geynina marka bankiga noo geeyaynu nid okay kharashkan yaa qaadanaya bal imikana qofka shaqaalaha ee noo shaqeeya aynu lacagta siinayno halkan ka dooranayna markii hore qofkan way soo xareysanay laakiin imika qof ay noogu jirin ba liiska ayaynu doonayna inaan siino oo si jadiid u soo xareyno qofkan waa shaqaale marka ku dhufo qofkan muxuu yahay ma vendor ba ma customer ba ma shaqaale ma soo adag waa employee waa shaqaale okay marka tiraa xagga ma magaciisa ka gelinaysa waxaad leedahay Maxamed marka okay tan siyeeda ku daadho marka qofkii aynu lacagta siinayna employee ahaa halkan saaw aynu uga siin kareynaa marka tii hore ku dhib yar tan hore ku dhib yar sababtoo tahay credit iyo debit kuma wareeraysa xagga bankiga laakiin haddaad adigu doontid sidan baad u samayn karaysaa marka kani faa'iidada uu ku leeyahay waxay tahay intaas oo qof baad hal mar wala gelin karaysaa oo maartay oo shaqaaleeyad hal mar lacagta wala siin karaysaa marka safe and close bal marka tan okay marka halkan maxaa ka baa lacagteeni 450 kun baa 550 kun baa 459 bay noqotay 100 baan ka saaray marka waa sida aad shaqaalahaaga lacagta u siinaysid ka waran hadaad doonaysid hal mar inaad shaqaalihi lacag wala siiso xabad soo gelinin halkii imika aanu imaano baad ku dhufanaysaa marka xagga ku dhufto waxa sameynaysaa halkan account-kii ay lacagtu ka baxday aad gelinaysaa cash-kii waxaad leedahay waxa ka baxay $100 hoos soo dhacaysa dana cash-kii $100 soo soco $100 ba hadana qiimi wala $100 waa cash-kii hadana marka sidaa u soo wala socotid yaa marka 300 isla noqoto aad imika debit gareynaysaa marka 300 markii cash-kii ka baxday yaa imika debit gareyn karaysaa waxa yaad leedahay intanba account-ka iigi magacyadii baad ku qoraysaa marka tii shaqaalahaaga ahaa lacagta ka qaatay balance ka soo gaagaabsano Axmed nidahno Axmed Ali okay wuxuu yiri yani ninkan ma aqaano waxaad leedahay iska baraad leedahay imika waa employee shaqaale okay dana waxaan leenahay xaleema iska dheh iska taabo ba aqaano yiri imika iska baraad leedahay waana shaqaale okay qofkan kalena مثلا بعبد الله إنه نراهن taabo haddaan sad ab ilaahdo yani intuu wuxuu igeenyaa meeshii liiskii dheeraasi uu maartay aan u soo buuxiyay sheekadii marka quick add baad leedahay si dhaqso ay ugu dar employee okay baad leedahay marka sidaa baad u siin karaysaa waxaan dhowaad credit gareynaysaa lacagtii aad bixinaysay oo credit gareynaysaa marka xaggan isaga soo xisaabinay debit mar walba intay socoto sida ku sheegay hadda xataa kumaanku xagga ku qortid xaggan isaga mar walba ku sheegay intay tahay laakiin aham xaajo waa inay halkan credit iyo debit weynay equal ahaadaan isla sinaadaan oo yani taana isaga mar walba shaqada ku qabanaya adu tirada geliso tii la mid oo xaggan isla ku gelinaya soo isugu kaana daraya marka sida halka marna yani waad wala siin karaysaa shaqaalihi marka safe and close taana bal aynu eegno cash-keeni wax iska bedel imikana 300 baynu ka bixinay 456 yaa imikana noo soo haray safe and close waka 456 baan noo soo haray 903 baxay marka sidaas waa sida aad mushaharkaaga shaqaalahaaga u siinaysid darsiga labaad la soco aynu ku bixin doono korontadii biyihii internetkii wixii oo dhan darsiga labaad baynu ku bixinaynaa la soco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.